بسم الله الرحمن الرحيم. madaxweynaha gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada madaxda xusbiyada golaha wasiirada taliyaasha ciidamada gaar ahaan taliyaasha ciidamada dalka Jabuuti iyo dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya marti sharafka kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waa sanad guuradii 28aad ee ciidamada booliska dowladda Somaliland. waxaan hambalyanayaa marka ugu horeysa dhammaan ciidamada booliska, taliyaha ciidanka booliska, taliye ku-xigeenada, saraakiisha sare, saraakiisha dhexe, saraakiil xigeenka, alifleyda iyo dableyda, caruurtooda iyo xaasaskooda, dhammaantood waxaan u tirayaa salaan aan leenahay. aad iyo aad baan idinku hambalaynaynaa, nolol wanaagsan baan idin rajaynayaa. ilaahayna waxaan ka baryaynaa sanadkan sanadka ku xiga inaynu maxaanku idhahday isugu nimaadno xaflado sidan oo kale ah. warbixin ku filan ayay soo jeediyeen taliyihii booliska iyo sarkaalkii hoggaanka howlaha booliska. waxaynu la soconnaa markaa aynu adduunyada kala mid nahay, meel kasta oo la joogo oo nidaam dowladeed uu ka dhisan yahay, lagama maarmaan waxa ah in ay jirto ciidamada booliska iyo noocyada ciidamada kale ee qarankaba oo ka shaqeeya xasilinta hirgelinta sharciyada iyo nidaamka maamul ee dowladeed ee dalka lagu maamulayo. waxaynu ognahay ciidankeena booliisku meel dheerna inuu ka soo dhaqaaqay, maantana warbixintiina ina maqlayseen. waxaynu doonaynaa markaa haddii aynu doonayno nidaamyadeenna amnigu inay aada iyo aada u hagaagaan, lagama maarmaan waxa ah bulshada qaranka, maamulada kale ee dowladeed inay intuba la shaqeeyaan ciidamada booliska. waxaynu ka warqabnaa hadda boolisku sidii uu taliyuhu warbixinta ku sheegay, gacan ku-dhiiglayaashii wax dilay inta la qabtay mooyaane inta baxsatay waa 5% in ka yar. waa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin in ciidankeenu ku guulaystay in dhammaan dadkii gacan ku-dhiiglayaasha abaa u dilay. taasi waxay yaraynaysaa inuu qof iska sameeyo inuu dil iska dilo dabadeedna uu dalka iskaga noolaado. dunuubta qaarkeed maadaama aynu wada shaqayn leenahay dowladaha aynu jaarka nahay, dowladda Jabuuti iyo dowladda Itoobiya, ciidamadeena qalabka sida waxa ay leeyihiin wada xidhiir ay ciidamada labada dowladoodba ay ka wada shaqeeyaan. ciidanka booliska Jabuuti taliyaheena uu halkan fadhiyo, ciidanka booliska dowlad deegaanka oo dowladda Itoobiya aan heshiis kala nahay, maadaama aynu iyaga jaar nahay inaynu dowlad deegaanka arrimaha kala shaqeyno. shirardoodana halkan aan ku wada galnay wasaaradda arrimaha gudaha. taasi waxay aada u yaraysay dunuubtii intay iska dhacdo Somaliland Itoobiya loogu gudbi jiray, ama Somaliland Jabuuti loogu gudbi jiray, ama Jabuuti Somaliland looga iman jiray, ama Itoobiya Somaliland looga iman jiray. in ay arrintaasi ay aada iyo aada u yaraato. waxyaalaha hadda iminka gacanta lagu hayay booliiska waxa weeye, hadda waxaa dhowaantan taliyaha booliiska aan wadnaa wasaaradda iyo ciidanka booliisku in la abuuro hoggaan la ballaaniyo oo ka shaqeeya hoggaanka ka hortagga mukhadaraadka iyo la dagaalanka mukhadaraadka. hadda waa lala dagaalamaa, laakiin ciidan specialized ah iyo qalabkoodii iyo waxoodii in la sameeyo. oo iminka waxaynu ka warhaynaa inay booliisku aada ugu guulaysteen waxyaalo badan oo khamriga iyo xashishadii waxaaba nooca. aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dowladaha iyo talisyadooda ciidamada iyo gaar ahaan ciidamadooda booliiska ay ciidanka Somaliland wada shaqeeyaan. waanaynu sii kordhinaynaa. waxaan ku soo ururinayaa arrintan uu taliyaha booliisku sharaxayay ee ahayd community policing. waa nidaam hadda iminka muddo kooban soo jiray oo adduunyadaba la isticmaalo, South Africa laga qaatay,
ciidankeenu markaa iminka waa lagu talagalay waana lagu guulaystay waana la ballaarinayaa sida uu gasho waxaan doonaynaa oo ka codsanayaa oo baahinayaa in dadka shicibka la shaqeeyaan ciidamada booliska xaafadoodiba inay ogaato saldhigga inay iyadu leedahay oo ay iyagu warbixinta keenaan oo ay xaaladda iskaga xidhnaadaan saraakiisha warbixintaa joogta waxaa dhaba ciidanka booliiska khasaarihii halkan uu taliyaha booliisku ka soo jeediyey ayaa madaxweyne ka soo gaadha howlgallada intay ku jiraan taa waxaa keenaysaa howlaha iyo nidaamka iyo sharci bulfulinta ay booliisku gacanta ku hayaan waxa qayb weyn ka qaata oo aan adigu mahadnaqayaa jenaraal nuux taali iyo taliya ku-xigeenadiisa halka fadhiya iyo saraakiisha taliska guud ee ciidamada qarankaba oo ay mar walba si toos ah oo isku xidhan ay u wada shaqeeyaan ciidamada maxaanku idhahdaaye booliska khasaarahaasi markuu soo gaadho waxaa barbar yaalla dad fara badan oo muwaadiniina oo runtii dhismaha qaranka meel fiican kaga jira oo booliska u hawl yareeya siday nidaamkooda u gudanayaan ciidamada booliska waxaan u sheegayaa inaanay ka cagataagin ama aanay ka cajsin hawshooda gudashadooda inaanay ku niyad jabin kuwa ka hor imanaya dadka ka hor imanaya waa qarandiidka waa sharci diidka waa nidaam diidka in nidaamka la raaca dadka in badan bay dhibtaan dadka ka hor imanaya waa tuugii waa sakhraankii waa musuq maasuqii waa waxyaalaha noocaasa ama dad siyaasiya dowladda uga soo horjeedaan ayaa booliiska wuxuu u qaadanayaa in dowladdu leedahayoo dabadeedna taasuu ayuu ku xanibayaa taasuu kula dagaalamayaa waxaan leenahay markaan booliiskana la wada shaqayno waan hambaryaynayaa taliyaha iyo ciidamadiisa iyo taliskiisaba hawsha wanaagsan ay qabtaan waxaan xasuusinayaa mar walba howlbaa ina hor taalla mar walba qabyaa ina hor taalla mar walba dareen baa ina hor yaalla waxaynu ku dadaalaynaa inaynu hawshaa dhammayno